السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبة قيمة يقدر أنت مدن سيدة توسكان نجلس عقد برتا جل كميديا سوسا نقد ونكسن وحساب بدن ورجين يا أديكو عاصمات قبا إن أد مركله هلكن كوسو لابطي صاحب يال وحن هلكن دون إن إذا كلوا ودقنا موضوع حساسية يوليبا قضب بدأ حل جن مركزي لحظة الهيئة كوسا سنة فرماجو يوليبا فهد ياسين قرشها علوس أي دجين ساعدها كوبان أي حرسن يوليبا جدول كدور الشدا أو وحك بدل أي دونيان إني كوسميان حبنا يجو مركا كأجدو أيا وركن لو حقيقي بلس مركا هره شرقرية مقالك أولسي وداجا صاحب بدي نكلا كوسبيرة برتقل كميديا بقولك كون أي أنهاي سنو وحن دونينا إن أد بقولك له سنة كان أنت كده من أد مركا سيبو حسان بيج كان ونقض بيج أد إن ما مركزي أد كحرنتهين حقها أد كقادتان أنت مركان كجي إيمان صاحب يال قيمة يقدرين يشرف أيات أكتر إنك مدنتهين قرشو ليابله أي حل جندجين دين عيدا فهد يفرماجو وحي قرشياش الكوسة ليسيهين رئيس الوزراء إنجنير محمد حسين روبله سيدي لوغو فشلين لها أرماها دورشوين كدلك عدادسك وكيلة بيش عالم كجارهان دولدها نوروي مريكنكا إثيوبيا كينيا iyo dhammaan dawladaha daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka dalka ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay ku kordhay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Roble qorsho awood ku salaysan xayuubin arrimaha awoodda ahi ayay dhinacyadu markaasi saacadihii aynu ka soo gudubnay ay wadeen loolanka aragtida iska soo horjeeda ee xafiiska ra'iisul wasaaraha saacadihii ugu dambeeyay waxa ay noqdeen kuwa markaa noqda kuwa ugu hadalhaynta badan ra'iisul wasaare Engineer Maxamed Xuseen Roble loolan adag ayuu xilligan ka wajahayaa xafiiska madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo markan dharbaaxa kulul markaa ee ku dhuftay xafiiska xukuumadda Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Roble xaaladdu way adag tahay dhinacyadu waxay u muuqdaan kuwa badan oo markaa saaxadda siyaasadda ee golaha wasiirada xukuumadda Roble ku jiray inay u wareegi doonaan dhinaca Fahad Yaasiin saacadaha inugu soo aadan warar waaweyn ayaa markaa ka soo bixi doona oo dhanka qorshayaasha arrimaha doorashooyinka ay ka leeyihiin dhinacyada lagu kala magacaabo haddii ay noqoto Fahad iyo waliba Farmaajo oo iyagu loolan adag xilligan ugu jira arrimaha doorashooyinka dalka inay ku fashaliyaan ra'iisul wasaare Engineer Maxamed Xuseen Roble talaabada qoorqoor uu ka qaaday dhinaca iyo waliba koonfur galbeed waxa ay noqotay mid la fashiliyay oo dhinacyadana ay isku ogaayeen in guul ka guuleysi uu gaaro arrimaha doorashada ayaa loo diidanaa ninka lagu magacaabo Roble way ku adag tahay xilligan xaaladda gudiyada doorashooyinka heer federaal aragti midaysan ayay qaadan doonaan xafiiska ee dhinacyada xilligan Roble la taliyaashiisa waa Engineer Cabdullaahi Abuukar Carab iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala talaabadan iyo qorshaha Fahad markan way fahmi la yihiin markan waxay yiraahdeen xaaladdu halka iska qaban laadahay ee dhinaca beesha caalamka nagala soo galay way adkaan doontaa waxay noqon doontaa mid annagu loolan kale inoo furi doonto ayay yiraahdeen dhinacyada way ku adkaatay ayay yiraahdeen dadka siyaasadda falanqeeya talaabooyinkii isdaba joogga ahaa ee Roble uu qaadayay wararkaas iyo xogahaas ayaa u dambeeyay saaxiib yaal mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka noo share gareysaan la sii wadaagtaan saaxiibadiina kale inagoo mar walba idinkaga mahad celinaynaa sida aad halkan ugu taxantihiin muuqaalkana noo share gareeya su'aasha aan doonayno inaan halkan idinkula wadaagno waxa ay tahay talaabooyinkii isxigay ee Roble miyay kula muuqdeen daawade in lagu fashiliyo arrimaha doorashooyinka dalka muuqaalka noo share garey tan iyo kulan dambe nabadgelyo